kusoo dhawaada si kastaba ha ahaatee casharadeenii noo socon jiray grammarka maanta grammarka aan idiin wado wuxuu ku saabsan yahay WH questionska demonstrativeska ayuu xooga saari doonaa. So WH questionska ilaa 10 WH question ayaan idin soo xulay iyo wixii loo adeegsado. Waxay kale leedahay exercise. So ka faa'iideysi habboon. Question words eray su'aaleedyo. Number 1, look at the question words and the answers iyo jawaabaha. Okay, number 1, what waxaa loo adeegsadaa things ka ayaa loo adeegsadaa ama ashyaada. Okay, so waxaan leeyahay what a computer. When waxaa loo adeegsadaa goor sida subax, galab, habeen, khamiis iyo wixii la mid ah ama xilliga xagaagii 2004 2005 something. Waayahay in the morning ayaan u qaadanaynaa mas example ahaan 2 3 numberka saddexaad what time waxaa loo adeegsadaa saacadda gacanta kugu xidhan 1 saac bar 2 saac 3 saac 4 saac 5 saac tusaale ahaan at 11:30 oo kale 5 saac bar. Who waxaa loo adeegsadaa dadka who is your teacher, who is your brother, who is your sister, who dadka ayaa loo adeegsadaa. Who's Fred yaa waayo oo kale. Okay, where waxaa loo adeegsadaa goob ayaa loo adeegsadaa Muqdisho oo kale, xaafadda oo kale, masjidka oo kale, where gooba loo adeegsadaa. Waxaan leenahay in Hanoi oo kan tusaale ka dhiganayna. How waxaa loo adeegsadaa situation sidee. waxaan leenahay qofka caafimaadkiisana waa lagu weydiiyaa. waayahay how sidee by bus ayaan leenahay. How old qofka da'diisa ayaa lagu weydiiyaa 25 ayaan leenahay. How many waxyaabaha tirsami karo kullu 3 4 oo kor ayaan leenahay. waxaan leenahay 7 ayaan tusaale uga dhigaynaa. How much waxaa loo adeegsadaa priceska qiimooyinka ayaa loo adeegsadaa iyo waxyaabaha aan tirsamin. waayahay $100 price ahaan ay hadda meesha ugu jirtaa. Why waxaa loo adeegsadaa sababaha. Okay, because waxaan leenahay waa jawaabteedii erga because maxaa yeelay aan leenahay. Okay, complete waxaa dhamaystirtaa questions su'aalo dhamaystir with a question word eray su'aalid wata. Number 1 kan kuwaad waxaan leenahay waxaa gelayo meeshaas erga how ayaa ka maqan. How old is better meeqa jir waaye. 2 numberka labaad meeshaas maxaa ku habboon where ayaa ku habboon. waxaan leenahay where does Tony live. Tony halkee ku nool yahay. 3 numberka saddexaad waxaan leenahay how many sisters do you have. imisa abaaya ayaa leedahay. 4 kan afraad waxaan leenahay what time do Anna and Carl get up. waqtigee ayay Anna iyo Carl hurdada ka toosaan. 7.2 waxaan ku qaadanaynaa pronouns magacyaalada. Okay, waxaan qaadan doonaa possessive adjective, subject, object pronoun. Okay, so shaxdan isku day inaad xifdiso oo aad Soomaaligeeda fahanto. Look at the subjects other subject and object pronoun. waxaad egtaa subject pronoun object pronoun and possessive adjectives iyo sifada tusaaleysa lahaanshada. waayahay subjectyada oo todobadiba waa kanaha waxaan leeyahay I, you, he, she, it, we and they. I waa aniga, you waa adiga, he waa asaga, she waa iyada, it waa shay iyada, we waa anaga, they waa iyaga. Object ahaan ama falhelayaal mafcuul waxay ku noqon karaan I, me ay ku noqotaa aniga. Okay, you adiga wax iska bedelaya ma lahan positionka ayaa ku fahmi doontaa. He asaga, him asaga ay noqonaysaa Soomaaliga yar isu egyahay. She iyada, ha iyada, it iyada shay waaye. We anaga, as anaga, they iyaga, them iyaga. marka waxaan leenahay Englishka order wuxuu leeyahay subject, verb, object. marka subjectiga waa kan koowaad lagu bilaabo. waxaan leenahay objectiga waa lambarka saddexaad dad ku aragta marka erayadan waa falhelayaal ama waa as object ayaad ula macaamilay. Possessive adjective sifooyinka tusaaleyaal lahaanshaha u soo gudub. waxaan leeyahay my wixiga, yo waxaada, his wixiisa, ha wixiida, it is wixiida, our waxeena iyo their wuxooda. So kuwaani markasta waxaa relate la magac ayaa relate la oo ku soo xigsada. My book, your car, his brother, her mother, it is milk, our
house the school oo kale saas ayaan u hagaajinayna okay qaybta exercise ka especially cashar kasta aan sameeyo waxaan isku dayaa inuu lahaado exercise oo la fahmi karo ama qofka fahamkiisa kordhinayo okay number 1 do you like tennis kama jeceshahay yes I love it halkan waxa ka maqan it yes I love it how aan jecelahay is Marcus here meeshan Marcus ma joogo yes he is ha wuu jooga jibs kamiya cunta yes I love them ayaan leenahay okay 4 numberka afraad the boys like wiilashu waxay jecel yihiin their teacher macalinkooda ay jecel yihiin marka la hadii aan ku celiyo okay kan koowaad do you like tennis kama jeceshahay yes I love it tennis waxaan ku bedelaynaa it ayaan ku bedelaynaa is Max here Max halkan miyuu joogaa waxaan leenahay yes he is subject ay aga maqan markaas okay jibs kamiya cunta yes I love them ha waan cunaa waan jecelahay okay the boys like their teacher meeshaasna possessive ayaa ka maqan their macalinkooda okay xigta 7.3 waxaan ku qaadanaynaa tilmaamayaal this iyo that we use this numberka koowaad we use this waxaan u adeegsanaynaa to refer to inaan ku tixraacno to things ashyaa near us no dhow okay this is my son kani waa wiilkayga okay I like this sandwich kan waan ka helaa oo waan jeclahay number 2 we use that erayga that waxaan adeegsanaa to refer to inaan ku tixraacno ku tilmaano okay to things ashyaa that are not near to us kuwaas oo aanan noo dhaweynin example ahaan that's my house kaas waa gurigayga I don't like that car gaarigaas kama helo wayhay fadlan haddii uu soo gaar videogan waxaan leenahay saaxiibada u gudbi subscribe de like na ugu dar waxaan rajeynayaa grammar fiican oo macquul ah oo tar leh inuu yahay